الرحيم wasiirada xildhibaanada maamulka degmada Cadaado odayaasha dhaqanka salaadiinta dhalinyarada gabdhaha dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ciidamada qalabka sida saxaafadda inta ka soo qayb gashay munaasabadan sharafta badan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi mudanayaal iyo marwooyin dhammaan dadka sharafta badan waxaan kaga mahadcelinaynaa soo dhaweynta diiran qoraxda aad muddada taagnaydeen nagu sugayseen aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa waxay noo tahay runtii niyad sami iyo sharaf iyo daddiilo inaan isu nimaadno inaan halkaan sharafta badan isugu nimaad waxay tahay waxaan looga mahadcelinayno marka labaad muddaan kala maqnayn Cadaado muddaan ka maqnaa oo aan ku jirnay howlo fara badan oo og tihiin oo galmudug ay ka socdeen howlo aad iyo aad muhiim u ah oo ay ugu dambaysay arrimihii shirarkii dib u heshiisiinta ama shirarkii muhiimka ahaa Soomaali ay ku martigelisay galmudug oo ka socday caasimadda ayaan muddo ku howlanayn safarna waa u galnay ugu dambayn si guul ay ku soo dhammaatay guul bay noogu soo dhammaatay Soomaali oo dhan baa guul taas galmudug ku soo jiiday intaas kadib dhowr bari ka horaan soo laabanay caasimaddan ku soo laabanay safarkii koowaadna waxaan ku soo gaarnay magaalada Cadaado iyo reer Cadaado waa mahadsantihiin waxaan rabnaa nabadii iyo sharaftii galmudug ay Soomaali horseedka uga noqotay ku guulaysatay inaad reer Cadaado doorkiina ka qaadataan nabaddana horseed ka noqotaan meeshaan iyo magaaladaana waxaa lagu yaqaana magaalo nabadeed magaalo dib u heshiisiin magaalo galmudug muhiim u ah lagu yaqaana waa magaaladii midnimadii galmudug ay ku aasaasantay ku samaysantay oo la isugu keenay galmudug haddana waxaa la rabaa inaad nabadda hormuud ka noqotaan waxyaabo yaryar oo meelaha ka dhacay ama dhibaatooyin muddadan dambe jiray reer Cadaado waxaa la rabaa inay noqdaan dadka tanasulka iyo hormuudka iyo nabad jeclida sidii lagu yaqaanay uga soo baxa haddii la yidhaahdo galmudug wax dhibaal u ah iyo wax caqabad keena inaan ka wada hortagno inaan la wada dagaalanno inaan isku meel u jeesanno dagaal waxaan la gelaynaa oo kula jirnaa cadowga argagixisada ku soo duushay Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan galmudug goobo badan iyo deegaano badan oo ka mid ah ku sugan ayaan dagaal la gelaynaa dagaal aan kan cadowga ahayn ma gelayno ma ogolaanayno caqabadna galmudug kama aqbalayno cidna reer Cadaado u hormara hormuud ka noqda wixii xumaan wada oo aan nabadda iyo wanaagga iyo guusha aan gaarnay aan hormuud ka ahayn xoogna waa isaga qabanaynaa xeelna waa isaga qabanaynaa aad iyo aad baa mahadsantihiin socodkaasaan maanta isugu nimid waa iswaraysanaynaa waqti baan isla qaadanaynaa odayaasha iyo salaadiinta iyo waxgaradka iyo mas-uuliyiintaan sarkaynaa wixii talaa iyo wixii howlaan hoos u gelaynaa dabadeedna deegaano kalean u safri doonnaa insha allah howlo muhiim aan ka soo qaban doonno waa mahadsantihiin guulaysta reer Cadaado mar labaad iyo mar saddexaad soo dhaweynta sharafta badan waan kaga mahadcelinaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu